bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wanaagsan. halkan waa wararka 24 saac kuna soo dhowaada wararka galabnimadan aan idin heenno kuwoodii ugu waaweyn ee warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ahlu sunna iyo dowladda federaalka oo heshiiskama dambeys ah ka gaaray xiisadii siyaasadeed ee labada dhinac, maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha amniga oo kulan ka yeeshay weerarkii 7 saacadood qaatay ee hotelka israel, maraykanka oo ka hadlay heshiiska dowladda federaalka iyo ahlu sunna waljamaaca, ciidamada dowladda iyo al-shabaab oo ku dagaalamay duleedka balcad iyo tiro ciidamada militariga oo halkaa lagu dilay, sheekh shaakir oo ka hadlay sida uu u arko heshiiska dowladda federaalka iyo ahlu sunna waljamaaca. wararka dibadda aan idin heenana waxaa ugu waaweyn dadweynaha britain oo u dareeraya doorasho dalkaa ka dhici doonta. waxaad daawateen qodobadii warkeena garab ee maanta ugu waaweynaha waa galabnimo khamiisa, taariikhduna waxay ku beegan tahay 12 bisha 12aad sanada 2019. kula soo dhowaada warkeennii oo faahfaahsan. haddii aad ku cusub tahay janalkan subscribe si aad u hesho ogaha daahsoonay halkan aan kusoo gudbino warkeennii oo dhan. wararka laga helayo magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in heshiis laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo sidoo kale ahlu sunna kuna aadan arrimaha dhismaha maamulka galmudug. wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay u socday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiyiinta xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale hogaanka ahlu sunna waljamaaca ayaa kama dambeys waxaa saakay laga gaaray heshiis buuxa, iyadoona la xaliyey tabashooyinkii dhanka ahlu sunna iyo sidoo kale caqabadihii ku horgoonaa geedi socodka dhismaha maamulka galmudugga. ahlu sunna ayaa loo ogolaaday 20 kuraas oo xildhibaanada ah islamarkaana ay ku yeelato baarlamaanka galmudug, kuwaasi oo ka imaanaya 89 kursi oo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudugga. waxaana qodobkan ahaa kan ugu weyn ee hor istaagnaa dhismaha maamulka galmudug. dowladda federaalkuna ay ku guuleysan weysay muddooyinkii ugu dambeeyay arrintaas ay xasiliso, ugu dambeyntiina maanta ay go-aan ka gaartay ilaa iyo 35 kuraas ayay doonayeen markii hore ahlu sunna waljamaaca. sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in arrintan la gaaray kadib wadahadal la socday muddooyinkii lasoo dhaafay dowladda federaalka iyo ahlu sunna, iyaga oo qodobka ugu weynna ay ku heshiiyeen labada dhinacna ay ahayd arrinta xulista baarlamaanka qoondada laga siiyo ahlu sunna waljamaaca. heshiiskan ayaa lagu xuseeyay in ay ka gacan geysteen odayaasha dhaqanka, ganacsato, siyaasiyiin iyo shakhsiyaad magaca ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyo beesha caalamkana. xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa bartiisa facebooka kusoo qoray in ahlu sunna iyo dowladda federaalku ay heshiis ka gaareen khilaafkii taagnaa uuna dhexeeyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug. waxaana uu bogaadiyey heshiiskan ay wada gaareen labada dhinac ee ahlu sunna waljamaaca iyo sidoo kale dowladda federaalka. shirka amniga caasimada ayaa lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho, iyadoona wax la iska weydiiyey weerarkii habeeno ka hor lagu qaaday hotelka israel ee magaalada muqdisho. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo shirka gudoominayay ayaa tilmaamay in la iskula xisaabtami doono sugidda amniga, islamarkaana loo baahan yahay in la xoojiyo qorshaha nabadgelyada caasimada. gudoomiyaha oo ka hadlay shirka amniga caasimada ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo qorshaha nabadgelyada ee lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada muqdisho. sidoo kale waxaa ka qayb galeen saraakiisha u xilsaaran sugidda amniga caasimada, waxaana wax laga weydiiyey weerarkii lagu qaaday hotelka israel, islamarkaana al-shabaab u suurta gashay in 7 saacadood ay ka dagaalamaan hotel kasoo horjeeda villa soomaaliya. weerarkii habeen ka hor lagu qaaday hotelka israel ee magaalada muqdisho waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka al-shabaab oo ay sheegeen inay ku dileen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale xubno kale oo xildhibaano hore kasoo noqday dowladihii kala duwanaa ee dalkan soo maray. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu horey u sheegay in ay ka go-an tahay in laga wada shaqeeyo amniga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya,
iyadoona hadda wararka ay sheegayaan in guddoomiyuhu uu ku adkeeyey saraakiisha ciidamada sidii loo sugi lahaa amniga gobolka banaadir. safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto oo ka mid ahaa xubnihii beesha caalamka ee ay waday wadahadalada ahlu sunna iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka iyo sidoo kale culimada ahlu sunna wal jamaa. Donald Yamamoto oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay markasta ka go-an tahay inay taageerto heshiisyada noocan oo kale ah sida isla markaana ay hubiso hirgelinta si loo gaaro nabadgelyo xasilooni siyaasadeed iyo sidoo kale in ay ka hirgasho guud ahaanba Soomaaliya ayuu yiri. Donald Yamamoto ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan tanaasulka adag ee ay sameysay dowladda federaalka iyo sidoo kale ahlu sunna ee ku saabsan qaabka doorashada iyo sidoo kale qaybsiga xubnaha baarlamaanka, isagoona ugu baaqay labada dhinac in ay hirgeliyaan heshiiskan. waxaan aqoonsanahay dadaalada dib u heshiisiinta ee ka jira dalka oo dhan, sidoo kalena tanaasulka adag ee ay sameeyeen labada dhinac ee ku saabsan qaabka doorashada iyo sidoo kale qaybsiga wakiilada baarlamaanka. waxaan dhiirigelinaynaa in ay hirgasho heshiiskan ayuu yidhi. Donald Yamamoto ayaa ugu dambeyn xusay in dowladda Mareykanku ay ka go-an tahay inay fududeyso gargaarka bani-aadamnimo, kaalmada amniga iyo horumarinta dhaqaale ee dadka reer Galmudug, maadaama uu sheegay in gobolkaas uu yahay gobol muhiim ah oo Soomaaliya ay ku taagan tahay. ugu dambeyn Donald Yamamoto ayaa sheegay in Galmudug uu yahay gobol muhiim ah horumarka mustaqbalka Soomaaliya. Safaaradda Mareykanka waxa ay ka go-an tahay inay fududeento gargaarka bani-aadamnimo, kaalmada amniga iyo horumarinta dhaqaalaha reer Galmudug ayaa lagu yiri warka ka soo baxay. hadalkan ka soo baxay Donald Yamamoto ayaa ku soo aadaya xilli maanta dowladda Soomaaliya iyo ahlu sunna wal jamaa ay gaareen heshiis khilaaf maalmihii u dambeeyay ka taagnaa halkaasi, iyadoona ugu dambeyntii maanta lasoo afjaray. wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in halkaas ay ku wada dagaalameen ciido ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale xubno ka tirsanaa al-shabaab. waxaana la sheegay in al-shabaab ay weerar qorsheysan ay ku qaadeen saldhigga ciidamada militariga lagu tababari jiray ee Hiilweyn, isla markaana 29 kiilomitir u jira magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kuna yaala duleedka magaalada Balcad. waxaa la sheegay in ciidamada dowladdu ay iska caabin xoogan kala kulmeen xubnihii weerar ka soo qaaday ee shabaabku ka tirsanaa. waxaana sidoo kale wararka aan helnay ay sheegayaan in la dilay xubno ka tirsan ciidamada militariga oo 3 ruux gaaraya iyo 2 qof oo habeenay ahaa oo halkaa joogay sida la sheegay. ciidamada amisom ee Shabeellada Dhexe qaybta Burundi ayaa waxaa la sheegay in ay diideen inay caabiyaan ciidamada militariga maadaama xilliga dagaalka uu dhacay ay ahayd xilli habeena. maamulka degmada Balcad ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamada Burundi ee howlgalka amisom ay u gurbadan waayeen ciidamada militariga xilliga halkaas dagaalka al-shabaab ay kala kulmeen. waxaana hadda degan goobihii lagu dagaalamay oo ay joogaan ciidamada militariga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo halkaa hadda maamulaya. waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in ciidanka militariga baaritaano kala duwan halkaas ay ka sameeyeen. madaxa xukuumadda Galmudug isla markaana ka tirsan hoggaanka ahlu-sunna wal jamaa Sheekh Maxamed Shaakir Ali Xasan ayaa isna soo dhaweeyay warqadii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee lagu sheegay in heshiis dhexmaray ahlu-sunna iyo dowladda dhexe. war-saxaafadeed uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir ayuu ku cadeeyay in ay aqbaleen isla markaana in ay qaataan soo xulidda xildhibaanada 20 gaaraya ee Galmudug la siiyay kana mid ah 89 xildhibaan ee baarlamaanka Galmudug, isagoona u magacaabay culimada diinka ahlu-sunna meel kastoo ay joogaan dadaalka ay geliyeen hirgelinta heshiis dhexmara dowladda federaalka iyo sidoo kale hoggaankiisa. Sheekh Shaakir ayaa tilmaamay in ay u tanaasuleen shacabka Galmudug isla markaana ay aqbaleen heshiiska ahlu-sunna iyo dowladda dhexe. sidoo kale beesha caalamka ayuu uga mahad celiyay dadaalka ay ku bixiyeen sidii heshiiskan loo gaari lahaa.
ugu dambeyn sheekh maxamed shaakir ali xasan ayaa shacabka galmudug ugu baaqay in ay ka wada qeyb qaataan dhismaha maamul galmudug oo loo wada dhan yahay. warqadaas ayaa ku saxiixnaa sheekh maxamed shaakir ali xasan, madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudugga. warka galab ayaad daawanaysaan markana dibadda. maantay oo khamiisa 12 December sanada 2019 waxaa guud ahaanba dalka Britain subaxnimadii hore ee saakay looga dareeray doorasho nooceeda aan horey loogu arag tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. doorashadan waxa ay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa jidka mustaqbalka dalkaas Britain oo kaalinta lixaad ee dhaqaalaha adduunka ugu jira, saameyn siyaasadeedna ku leh qaaradda Yurub. welibana waxa uu intaas sii dheeryahay in doorashadan ay ka dhalatay go-aanka reer Britain ay kaga bixi doonaan midowda Yuruba. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo hogaaminaya xisbiga muxaafadka ayaa waxa uu hogaamiyihiisa u sheegay in doorashadan ay noqon doonto mid taariikhi ah haddii ay ku guuleystaan. guud ahaana waa mahadsantihiin warkeena galab waanaga intaas. anigoo Ibraahim adin la socodsiinayay. nabadgelyo.